saad la socotiin ba aniga waxaan ahay nin hantidiisa waddanka soo celiyay oo maal gashtay waddanka tusaale ahaan hadda waxaan ka gatay maqaayad weyn tower marka taas maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay inaan businessman ah isaabiyo fiir adiga ay dadka miskaga dhacaysaa qof muhiim ah ani dabaqa dahab tower maqaayad ka gatay nin ganacsatada waddanka mid ah waddanka maal gashtay nin si sahal loogu dhacmay dadkana iskaga dhacdo ma fiicna walaal maxaa sawiraysaa in horta marka koobaad aan isku sheeko ganacsatada waddanka ku jira maalgashatada marka dabaqa dahab towerna qayd baa ka gatay lambarkaaga miyuu qoraysaa ummadda Soomaaliyeed waxaa la wadaagayaa in aan ka mid noqday maanta maalgashatada waddanka waxaa maqaayad ka gatay dahab tower team dahab waliba waxay ballan qaadeen 60% maalgelina inay ugu sii taakuleen doonaan taasoo aan ka sii dhaqaaq karay intaas rabay inay la socodsiiyo oo mahadsantihiin injineer meeshana si dhaqso ah ku dhamaysan waayo meeshan waa u sheegay shacabka Soomaaliyeed inaan maqaayad ka gatay marka waxaan rabaa in meesha shacbiyad badan yeelato lagu dhaqso insha Allah injineer ku dhaqsaya dhaqso insha Allah ilaa ku farxay Soomaaliyeey dabaqa dahab tower baan maqaayad ka gatay yes ganacsatada ka mid noqday yes farxadaada qarsan dahab tower ka gado maqaayad weyn oo hel maalgelin 60% ah